السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود دونيدا مeel walba oo joogto ku soo dhawow marka hore channelka Aftahan Production. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe sar calaamadan kabalka frosi aad ula socoto macluumaadada ugu dambeeya ee la soo geliyo channelka Aftahan Production maadaama uu yahay channelka aad kala socon karto barnaamijyada soo gudbiyo anigu Cabdilaahi Balwana waa 12 bisha koowaad sanadka cusub 2020 qodobada barnaamijka aad ku maqli doontana waxaa kamid ah galmudug ay ka dhacday qayladaan iyo musuqmaasuqii ugu ballaarnaa iyo beelihii galmudug oo qayladaaminaya yay dhibaatada ugu culus ay gaadhay yaa la dhibaateeyay dhuusamareebna maxay sababi doontaa haddii dadka qaarkood ay sidaa ku eegtaan qayladaan qaar ka mid ah qabaa'ilada degan galmudug ayaad kula socon doontaan iyo dhibka ka socda dhuusamareeb oo iftiimi doono hadduu alla idmo sidoo kale waxaad dhinaca galmudug weli aad kula socon doontaan haddii marxaladda ka taagan dhuusamareeb dadka qaarkood ay ku eegtaan ama ay suurtagal noqoto in dhibkaas lagu eegana waxaa ka dhalan kara ayaan iftiimi doona hadduu alla idmo sida wararku ay sheegayaan waa sidee xaalka madaxweynaha sharciga ah ee galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf afduubka ka socda dhuusamareeb ilaa hadda madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf wuxuu ka yidhi ma dhaba in isagu xitaa aynan waxba gacanta ugu jirin xaalku uu marayo meel halis ah macluumaadka galmudug ee ugu dambeeya ayaan ku soo gudbin doonaa intuu barnaamijku socdana waxaad maqli doontaan wararka ugu dambeeya xaalka caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo ku iftiimi doona hadduu alla idmo sidoo kale intuu barnaamijku socdo waxaan iftiimi doonaa askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo lagala baxay kaliyaha isla markaana eheladiisu ay qayladaaminayaan magaca askariga iyo sida ay wax u dhaceen iyo fiidiyoyaasha laga duubay askarigaasi oo aan la wadaagay bulshada wata barnaamijka walina aan diyaar u ahayn inaan soo diro qof kasta oo doonaya muuqaalka askariga dhibka uu gaaray kaliyaha lagala baxay informationkiisa ama dhammaan macluumaadkii ku salaysnaa askarigaasi ayaan kula wadaagi doonaa iyo sida ay wax u dhaceen hadda doonayso muuqaalkana maadaama ay ka reeban tahay isticmaalka muuqaalkaasi inaan ku soo gudbiyo halkan sabab la xiriirta dadka daawada barnaamijka inta badan u adkaysan karin iyo sharciga internetka u dhigan oo ay halis tahay muuqaalkaasi marka aad dadka la wadaagayso inuu dhib u keeno channelkan Aftahan Production iyo waliba Facebook-gayga oo labada dhinacba aan dadka uga gudbiyo maadaama laga reebay ma gudbi karayo sidaa darteed waan kula wadaagayaa macluumaadka markaad dhegeysato kadibna iga soo dalbo telefoonkaygu waa eber 2762924 eber 17 aan kugu celiyo eber 2762924 eber 17 haddaad iga soo codsatona waan ku soo dirayaa muuqaalka askariga kaliyaha lagala baxay macluumaadkiisana caawa ayaan barnaamijka ku eegi doona hadduu alla idmo waa 12 bisha koowaad 2020 u diyaargarow barnaamijkii oo dhammaystiran magacayguna waa Cabdilaahi Balwan musuqmaasuqa iyo qayladaanta dhuusamareeb iyo afgembiga ka dhacay intaanan u gudagelin marka hore aan ka bilaabo madaxweynaha Soomaaliya iyo safarkiisii Eritrea madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaab qarsoodi uga qayb galaya ciidamo lagu tababarayo dalka Eritrea iyadoo magaalada Asmara oo madaxweynuhu ku soo afjari doono kulankiisii ku salaysnaa la kulanka madaxweynaha dictatorka ah oo la ogyahay in madaxweynaha dalka Eritrea uu yahay nin kaligii taliye ah oo taariikhda baal mugdiya uga qoran geeska Afrikana ay dadku wada garanayaan madaxweyne farmaajo macluumaadadii uu Eritrea u tagay waxa kamid ah qaabka ay ugu suurtagali karto inuu dalka Soomaaliya iska sii maamulo isagoo hamigiisu yahay inta uu doonayo inuu dalkan madaxweyne ka noqdo farmaajo ayaa isbedelay kadib markii uu la saaxiibay Eritrea iyo Qatar waxaana laga dhaadhiciyay barnaamij ku salaysan in Soomaaliya la xukumi karo haddaad haysato ciidan iyo lacag fara badan waxaana laga dhaadhiciyay madaxweyne farmaajo in dadka degan Muqdisho iyo gobolada ku dhadhow laaluushku uu aad uga adag yahay ama ugu fudud yahay oo ay adag tahay inay iska celiyaan laaluushka waxaana loo sheegay madaxweynaha Soomaaliya military iyo laaluushka uu ku qabsan karo dalka Soomaaliya Eritrea markuu tagay dhigiisa dalkaasi waxa uu ka dhaadhiciyay in marka koowaad bulshadu ay u qaybsamaan waa bulshada Soomaaliyeed tirayar oo aanan balaarnayn waxaana uu ka dhaadhiciyay dhigiisa dalka Eritrea in farmaajo uu haysto fursad uunan haysan madaxweynaha dalka Eritrea inuu farmaajo haysto fursad uunan haysan ra'iisul wasaaraha Ethiopia inuu farmaajo haysto fursad uunan haysan madaxweyne Afrikaana oo geeska Afrika ka soo jeeda sabab ayuu yiri madaxweyne farmaajo waxa lagu yiri dadka aad madaxweyne u tahay 99% laaluushka waa jecel yihiin dadka aad madaxweynaha u tahay 100% waxa ay wax waliba ka hormariyaan in xoogaa jeebka loo geliyo waxaa loo tilmaamay hadalkayga aad ula soco gobolada koonfureed dadka degan oo inta badan dhibkii hore laga qabay oo aan ula jeedo dagaalkii 1991 dalka looga saaray madaxweynihii kaligii taliska ahaa ee Maxamed Siyaad Barre waxaa la yiri dadka dhibka geysto waa dadka koonfurta degan laakiin maanta waa jilcan yihiin waxaa la yiri koonfurta Soomaaliya waxaa degan odayaal u nugul laaluushka aadna ay ugu fududahay mar walba in laaluushkaasi ay ka doortaan dhibaato walba oo deegaankoodu gaaray waxaana loo sheegay in uu fursad u haysto isticmaalka lacagta iyo
weliba military fara badan oo lagu daadiyo dhulka aan la isleeyahay dhibaatada ama kacdoonku way ka dhalan kartaa oo ay ka mid tahay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynaha oo laga soo saaray dhammaan cabsidii uu qabay maalmihii ugu dambeeyay ayaa laga yaabaa markii uu dalka yimaado inuu la imaado mowduuc cusub iyo jadwal cusub balse qof kasta oo Soomaali ah waxay maanta marqaati ka noqonaysaa safarka Eritrea loo aadayo oo mar walba uu madaxweynuhu ku noqonayo inay tahay astaan oo kaligii taliinimo ku doonayo koonfurta Soomaaliya dadka degan isla weyniga ayaa wax waliba ka baabi'inaya qofka siyaasiga ah ee degan koonfurta Soomaaliya wuxuu ku leeyahay ma isaga awooda ma isaga samayn kara ma isaga awood asle ma isaga awood keeni kara ma anagu nagu dayi kara suurtagal maaha ficil kale ma yaqaan iyagoo sidaa ayaa mid loo laalushiyaa qofkii hadaba $1 milyan qofkii hadaba $2 milyan qaado qofkii hadaba $3 milyan qaado safarka Eritrea Soomaaliya ogaada Britain markay soo baxdana xusuusta military tababar loogu furay Asmara oo aynan dawladda dhexe ogeyn ayuu madaxweyne Farmaajo ka soo kaxaysanaya dalka military waa la soo afxiray oo inta badan tababarku waa soo dhamaaday 80% waa dad Eritrean laakiin dadka Soomaaliga loo soo gali doonaa 11 habeenimo Soomaaliya ka degayaan ama 5 saac oo habeenimo garoonkay ka degayaan Muqdisho adigoo jiifo ay soo degayaan wax waliba mid xusuusnaa mar walbana ku dhaganaada haddii xaalku intuu suurtagal yahay aadan adigu ka digtoonaan ilaa baarlamaanka hortagaya ma jireen ogow adoo halkaaga jooga ayay dhibaatada kugu imaanaysaa waxaad dhihi doontaa maalin maalmaha ka mid ah ayaan ogeysiiskaas maqlay haddaan samayn lahaa dhibku inta uu ka fudlaan lahaa madaxweynaha Soomaaliya oo adigu malayso inuu yahay madaxweyne dimuqraadi lagu doortay isagu wuxuu aaminsan yahay inuu Soomaaliya xoog ku qabsaday wuxuu aaminsan yahay Muqdisho dadka degan inaysan lahayn aqoon siyaasadeed ay kaga hortagaan waana culays inta leeg haddaysan dadka iyo siyaasiyiintuba ay ka foojignaan macnaheedu maaha anigu inaan siyaasi ahay anigu wax shaqo kuma leeyahay waxaan ahay gudbiye xogta aan gudbinayo oo kaliya ayaan dadka u iftiimiyaa xildhibaan maahi wasiir maahi taliye ciidan maahi madaxweyne maahi afayeen mucaarad iyo mid muxaafad intaba maahi gudbintu waa inaad adigu ogaataa haddaad ogaatana waa alxamdulillah haddaadan ogaano waa rabbil caalamiin anigu waa isku kaydid haddaad baraarugtana waa okay haddaadan baraarugina waa sida ogaada Eritrea casharada laga soo siiyey waa laaluush iyo military dhawaan ayaadna indhihiina ku arki doontaan dhaqdhaqaaqa ciidan inkastoo tirada ciidamada uu soo wato ay ka yar yihiin sidii shalay loo mareynayay 6,000 oo ciidan ayaa la sheegay laakiin hadda way ka yar yihiin 4,000 tiraduna aad u siyaaranaysa maalinta ka dambaysa laakiin waxa loo balan qaaday ilaa sanad guurada afraad ee ka soo wareegtay asaaska ama macnaha doorashadii madaxweyne Farmaajo oo ku beegan 8 bisha 2020 waa tii saddexaad ee ku beegan 2028 bisha labaad insha Allah markaasna ciidamo cusub oo hor leh ayaa la keeni doonaa fujinaantu waa muhiim intaad British Airlines lahayn wararka kale ee xisaab badan ee Soomaaliya ka jirana waxa kamid ah doorashada soo socota oo isbedeladeedu ay aad u labalixadsatay ayaa xisbiyada qaran waxay wadaan barnaamij siyaasadeed daboolan oo inta badan hore looga baran siyaasadda dalka Soomaalidu ay fahamsaneen Soomaalidu maanta laga ma dhaadhicin karo siyaasadda daboolan siyaasadda qarsoon ama siyaasadda aamusan ay ku leeyihiin ficil muu sameeyo muu dharbaxsho geysto dad muu dilo goorma laga tagay waxaas in dad la dilo mar hore laga tagay in qoray la qaato dad la weerarana mar hore laga tagay siyaasadda daboolan waa fashil siyaasadeed lagu tirtirayo dhaqdhaqaaq walba adigu sameeyayso xisbiyada qaran waxay wadaan qoraallo loo qaybinayo beesha caalamka oo lagu muujinayo in fashilka siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira aan la dabooli karin waxaana loo muujinayaa beesha caalamka in madaxweynaha talada dalka haya xaalkiisa uu marayo hebelka argoso kani isku qabiil ma tiidin ayni kani waa igu qabiil soo dhaweey laguna baarinayo ama lagu kobcinayo ama lagu naasnuujinayo dadka isku beesha yihiin madaxweyne Farmaajo waana calaamad inteeda la eg xisbiyada qaran waxay cod dheer iyo cod gaaban ku leeyihiin intay goor tahay taariikhda isbedelaysa ayuu jawigu isku bedelaayay Soomaaliya istajiya xaq sida moodaysan maaha inuu Shariif xabad rido waxa ka wanaagsan inuu iska xadeegsado inaad adigu xabad rido sanadka afraadna waxa ka wanaagsan inaad siyaasadda isticmaasho maxay la sanadka waa sanadkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Farmaajo haddaad qoray qaadato xabad ku rido ogow dalka markuu dib u dhaco taariikh xumada adiga kugu dhacaysa ilaa ninku waa fashilmay gacan kuma hayo bees caalam oo gacan waxa siinaya ma jiraan gaaladii iyo dadkii Soomaaliyeed way ka soo horjeedaan maanta waad arkaysaa safiirkii Mareykanka dhulkii iyo goboladii dalku maraya beesha caalamka waxay faragelisay arrintii Kismaayo waa tii lagu fashilay
waata imika indhaha lagu hayo xaaladda dhuusamareeb oo loo yeeray ra-iisul wasaare khayre marka waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed ku baraarugi doonaan intay goorigoor tahay cashurkana waa ka duwan yahay sida kale insha Allah xalka xisbiyada qaran walow aan anigu wax amaan iyo xayisiin u sameeyay waxaan hubaa in siyaasad qoray la rido ay ka sharaf badan tahay siyaasadda daboolan oo hadda taagan oo waliba bulshada daawato barnaamijkayga aan leeyahay siyaasadda aamusan dhiigu kuma daato siyaasadda aamusan dalka dib uma rido siyaasadda aamusan adigu ceeb kuma keentee waxay kor u qaadaa sharafkaaga marka waxaan leeyahay tani bogaadin bay mudan tahay aamusnaantu waxay ka wanaagsan tahay in xabada dhacdo walaalka uu dhinto ama uu adeerka dhinto insha Allah waxay ku soo kordhaa xisbiyada qaran la jaanqaad barnaamijyada soo socda Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame iyo xisbigiisuna waxay wadaan dardar xooggan oo ku aadan hanaanka dowladnimo ee la sugayo inuu koowaad ka noqdo waxa uu si toosa u mutaystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame inuu noqdo dulqaad ugu wanaagsan Cabdiraxmaan gurigiisa la weeraray waa iska qoslayay gacanta laga jibiyay sharci darro waa iska qoslayay lacag been lagu madaxa loo geliyo waa iska qoslayay waxaa loo diiday inuu meydka aasto waa iska qoslayay waxaa la diiday sidoo kale in haba yaraatee uu dhaqdhaqaaqo dhinaca ku aadan hanaanka iyo inuu xabada bilaabo leeranigtay ninku waa habargaday soo iska aamus dimuqraadiyaddu waxa ay qayb ka tahay ammaan qofka loo bogaadiyay aniga qofka dilay araysin oonan aroonin waxaan anigu aaminsanahay inay tahay mid bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karayaan ninkani waa dulqaad badan yahay waa ninkii fiiri qaladkii uu galay kaaligeli ka bixiyay haddana lagu sii dabadhigay waa ninka kaliya madaxweyne farmaajo uu ka boqo runtan idin sheegaya cid kale oo farmaajo ka jaraya ma jirto ama ku nac ama ku jeclaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waa ninka baqdin geli kara dowladda farmaajo waa ninka kaliya ka baqaa la kulanka madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxay jiitamaysa muddo 4 sano maalin qorar uu ogolaan waayay hal maalin uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur laga hoos bixiyay oo dantu ay kaliftay in markaas la kulmana ma jirin dulqaadka iyo hanaanka uu siyaasadeed oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku daadiinay dimuqraadiyad ahaanna waa 100% dulqaadkuna waa 100% laakiin Soomaalidu qofka samra nacsi iyo qanaan ninka samra nacsi iyo qanaan dad isaga dad ugu xiga oo tulkiis ah waxay aad uga caroodeen dulqaadkiisa faraha badan wuu naceebayay dadkii baa la sheekaysan la'aanahay markuu 100 qofood dilo oo dad la sheekaysato iyo inuu noqdo ninka ugu dulqaadka wanaagsan yuu ku noqonayaa geesi marka ma ninka dila kaliya gees u taqaanaa anigu waxaan cadaynayaa ninka u dulqaadka ka geesisa markaan anigu samro dhibka soo geysato waxaan ka geysanahay ninka kale dhibaatada geysta marka sidaa darteed waxaan leeyahay dulqaadku diiniyana waa wanaagsan tahay samirkuna diinta xaggeeda uu ka wanaagsan yahay sharciyana uu wanaagsan yahay maxaa dhici jiray inta badan dulduleelkiisu waa la raadiyaa inta uu jeero oo madaxweyne farmaajo ku xadgudbay diinta islaamka cid ka fadwootay iyo wadaad u istaagay midna lama arag madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay dowladdiisu inaysan haysan dhaqanka islaamka wad dhegeysanteen haddaad doontaan xitaa hadda waan idin maqashinayaa inay dhaqan haysan wuxuu yidhi gaaladu waxay annaga nagu jeclaatay maadaamaan annagu dhaqanka islaamka lahayn marka madaxweynihii dalka haduuba yidhi annagu dhaqanka islaamka ma lihin dowladdeedu dhaqan islaam ma laha wadaadkii fadwoon jira waa iloobay waa hurday halka jeer uu dhibkii iyo taraarixii iyo qaladkii uu geystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma difaacayo waa qalad waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka baxay markuu Jarmalka joogay laakiin wadaadka qaladka Cabdiraxmaan Cabdishakuur arkay muxuu arki waayay qaladka madaxweyne farmaajo maxaa loo arki waayay madaxweyne farmaajo shirarkiisa Muqdisho waxa ka jira waxa ka mid ah culamaa u diin Muqdisho lagu kulmiyaa waxa la yiri madaxweyne farmaajo subhanallah waxa la yiri shan calaamadood buu nabigeena Maxamed nabadgelina xariisku ka shaaqay shan calaamadood uu ka shaabaha waxa la yiri madaxweynuhu wasaa culimadu maxay u arki waayeen culimadii dhageystay madaxweynuhu 3 calaamadood ilaa 5 calaamadood uu nabiga u eegay oo uga ka shaabaha ay ka mid tahay xariista faraha badan waa madaxweynaha abadkiisa tacsiin waxa la yiri bal fiiri gafka loo geysanayo rasuulkeena Maxamed nabadgelina xariisku ka shaaqay waxay culimadu u arki waayeen ma farmaajo iyo Maxamed iyo nabigeena Maxamed nabadgelina xariisku ka shaaqay miyaa isku dulqaad ma laga yaabaa in lagu soo xasuusto oo maanta la yiraahdo nabiga naxariistiisa iyo madaxweyne farmaajo naxariistiisa isku mid ah bal ilaahay idinku dhaariyay eeg intaas ma lama arag maxay yeelay ninkan wuxuu ka soo jeedaa culimo hurda ninkan wuxuu ka soo jeedaa culimo ka soo jeeda marka culimadiisu waa heegan qalad walbo ay arkaan ninka tartanka kula jiro way qabanayaan laakiin ninkan culimadiisu way jiifaan marka waxay qayb ka tahay waxa u baahan dadku inay ogaadaan dagaalka ninkan lala galay siyaasi Soomaali ah farmaajo lama galin farmaajo dagaalku Cabdiraxmaan Cabdishakuur la galay ma jiro nin siyaasi Soomaali oo la galay ma jiro bal ilaahay baa idinku dhaariyay dagaalka la weeraray guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadii guriga Sheekh Shariif la weerar lahay ka waran maanta xabada bilaabay Shariif laba jeer airportka laga celiyay marna wuxuu yiri stop halka joogto ha dhaafin
soomaalina ha isku timaado marna wuxuu yiri wallahi tuma bal ka waran hadii gurigiisa tala weeraro dadkiisa la xasuuqo meydadka rag iyo dumar la isla aasi lahaa ma dul qaadan lahaa jawaabtu waa maya marka dadaal xoog leh ayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta u muuqata anigu qofka samirka badan ayaan leeyahay runtii fursad uu mudan yahay inkastoo anigu afayeen u ahayn laakiin iftiimiddu waa wax loo baahan yahay dadku inay ogaadaan marka Soomaalidu laakiin ilama fahmayaan adiga idaawanaysa ilama fahmaysa adiga hadda idaawanay adaan kula hadlaya adiga idaawanay ilama fahmaysa maxaa yeelay waxaad adigu gees u taqaanaa ninka dila marka geesigu ka maaha geesigu waa ninka dulqaadka badan samra diintuna way amaatay insha Allah marka waynu arki doonaa xisbiga wadajir iyo dhaqdhaqaaqa ay wadaan siyaasadana waxa ay isbedeli doontaa maalintii madaxweyne looga dhawaaqo galmudug maalintaasi xaaladdu isbedeli doontaa insha Allah marka galmudug waynu sugi doonaa tartanka iyo xisbiyada ama musharaxiintana waynu arki doonaa tolo waxa guuleysan doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa guuleysan doona Xasan Sheekh Maxamuud waxa guuleysan doona Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa guuleysan doona siyaasiyiinta kale iyaguna soo gali doona kullay saaxada waa la is arkayaa maxay jiraan xamarka bur iyo biyo loo kala baxaya waa inoo bisha 6 2020 xaalku aad u isku bedeli doonaa 4 bilood kaliya ama 5 bilood ay harsan 5 bilood markuu xaalku bisha 6 la isla gaaro xaaladdu waxay noqonaysaa barbarkaad ka gasho waa bakala qarayn insha Allah aan ku soo laabto marka galmudug iyo xaalkeedii walaalay oo Soomaaliya waxa ka jira qarrib yable waligay intaan war baarayay ama aan gudbinayo war arrintan Soomaaliya aniga waa igu weynta maxaad ku tiri waxaan dhawaan wada hadalnay xildhibaan Odawaa Cabdiraxmaan Odawaa musharaxa ugu taageeraha badan galmudug wuxuu ii sheegay xildhibaanada dawladdu inay ku qatalantay xildhibaanada aan arkaysaan maqaarsaarka oo staafka qayra u badan oo aan loo xulin qaab nidaam ay dadku ku qanacsiin qayladaanta beelaha marka loo eego wuxuu Cabdiraxmaan Odawaa ii sheegay in xisbiyada wadajir iyo waliba xisbiga UPD labaduba ay heegan koowaad ku haystaan wuxuuna yiri dawladda wax lu kule meesha maba yaalaba arigay Kamaal ayaa ku tartami doona wadajir iyo UPD labadaba tartankooda wuxuu noqon doonaa xildhibaanadaasi wuxuuna ii amaaray Cabdiraxmaan Odawaa wuxuuna yiri shacabka fahamsiin dawladdu waxay la dabacsaneed afgambi laakiin arrintaas lama dhihin sida darteed wanaag ayaa Soomaaliya ka dhacay aniga iyo Kamaal Guutaale ayaana tartami doona Kamaalna waa wadajir aniguna xisbiga Xasan Sheekh baa ahay marka wuxuu yiri arrinta meesha ka dhacday waa dadka wali damujdiidka diidan ama wali ka soo horjeeda Xasan Sheekh iyo dadka diidan ayaa diidan buu yiri xildhibaanada halkan jooga Cabdiraxmaan Odawaa ayaa sidaa marka wuxuu yiri waa dadkii shalay nacbara Xasan Sheekh Maxamuud ama xisbigii damujdiid nacbara oo ilaa wali nacaybka damujdiid uu ku dambeeyo ayaa xildhibaanada diidan Cabdiraxmaan Odawaa intaas ii sheegay ma hayo warka baxsan warka Cabdiraxmaan Odawaa laakiin waa lagu qanci karaayo Odawaa waa nin siyaasaddiisuna ay miisaan leedahay taageero badan haya isla Odawaa naftigiisu waxa uu hambaliyo u diray oo hadalkayga aan ku sheegayo xaqiiqdiisa muujinaya waa tuu hambaliyo u diray dhammaan xildhibaanada galmudug ee dhawaan lagu dhawaaqay hambaliyada Cabdiraxmaan Odawaa waxay muujinaysaa hadalkii aan idin sheegay wuxuuna Cabdiraxmaan Odawaa sheegay xildhibaanada dawladdu inay ku fashilantay waxay shalay moodaysay inay xildhibaano codka sii doonaan ama nabad iyo nolol inay yihiin laakiin hadda way ku ceeboobeen baa la yiri UPD iyo wadajir ayayna codka sii doonaan waana xildhibaano u kala qaybsan labadaas xisbi adiga oo Cabdiraxmaan Odawaa ah iyo Kamaal Guutaale ayuu tartanka u dhaxay doonaa sidaas ayaan u fahmay marka Cabdiraxmaan Odawaayo ummadii waan u sheegay waana war adiga ku gooniya aniga kuma jiro dhanka kalena waxaa jira qayladaan xooggan oo galgishay beelaha degan galmudug qaarkood ma rabo in dadka markaad war u sheegayso weligaa xaglintu waa la iska ilaaliyaa qabaa'ilo ku faraxsan ku qanacsan ayaa jira sidoo kale qabaa'ilo ka soo horjeeda oo salugsan ayaa jira beelaha salugsan waxaa ugu tun weyn beesha Sacad Habargidir iyo beesha Wacaysle haba ugu badnaatee beesha Cali Gaaf iyo guud ahaanba Wacaysle aniga waxba isku kayma laabta anigu ciidan gooni fakarkiina aan kor u qaaday ma jiro waxgaradka Wacaysle gaar ahaan Cali Gaaf waxay sheegeen odan dhaqameed ka soo jeeda beesha Cali Gaaf oo ku adkaystay qayrana ka diiday gudoomiyaha baarlamaanka inuu Wacaysle ka darasulo ayaa lagu weeraray magaalada Dhuusamareeb warkaas waa warka koowaad anigu baaritaan ma samayn xog aniga ii gooniya kama hayo odan dhaqameedkaasi beesha Wacaysle balaan wajigiisa inuu tuso gaar ahaan waa nin Cali Gaafa waa nabadoon caana intaan magaciisa sheegay oo aan informationkiisa u guda galin marmarka hore odagayna arka muuqaalka odaga waa kan sawirkiisa
nabadoonkan waxaa la yidhahdaa cismaan macalin axmed waa nabadoonka beesha cali gaaf waxaa la sheegay in gurigiisa lagu weeraray xalay abaara adiga fiidnimadii taariikhdu markay ahayd 11 bisha koowaad ee hadda ku jirno hadda waxaan kula hadlayaa waa 12 bisha koowaad gurigiisa lagu weeraray dhuusamareeb nabadoonkaasna waxaa la yidhi sababta loo weeraraa waxay tahay qaar ka mida dadka siyaasiyiin odayaasha beesha wacaysla qaarkood ayaa ra'iisul wasaaraha dhiil la galay kursiga beesha cali gaafna hawada ha lagu cuno ama ha la fashiliyo anigu taawar ka baxsan maayo siday wararku sheegayaan kaliya ayaan idin akhrinaya xog ka madax bannaan oo ii gooniya ma jira nabadoonkaasi waxaa dhuusamareeb lagu weeraray kadib markii uu diiday wacaysle ka tanasulidii ay qaybaha kale ka tanasuleen inay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ay noqdaan nabadoonka waa ku dhagay kuwii kalena way tanasuleen nabadoonkii cali gaaf waa ku dhagay waa diiday in gudoomiyaha baarlamaanka laga saaro gacanta beesha wacaysle waa diiday kuwii kalena way ogolaadeen nabadoonkaas kadib gurigiisa lagu weeraray ciidamo aan la garanayn ama aanan la aqoon haybtooda dawlad ama nooc kale aan la garanayn baa gurigiisa weeraray wararku waxay sheegayaan inuu ka badbaaday isku day dil anigu ma hayo warar madax bannaan oo nabadoonkaasi dilka ka badbaaday ardaynaya balse insha allah waa sii baari doonaa barnaamijyada soo socdana waa ku iftiimi doonaa hadduu alla idmo wacaysle gaar ahaan cali gaafna waxay ka doodayaan ama ay leeyihiin kursigii beesha cali gaaf waa la waayey ma hayo xog ku salaysan arrintaasi oo dhammaystiran hase yeeshee qaar ka mid a waxgaradka oo barnaamijka la soo xiriiray waxay sheegeen cali gaaf wuxuu luusgaraya ama uu markaas lumiyey kursiga beesha cali gaaf waxaana la yidhi kuraasti kale waa la qaybiyey cali gaaf hawada aniga xogtan faahfaahinteeda ma hayo wararku waxay sheegayaan kaliya weeye baaritaankayga lukuma laha waxaa la yidhi nabadoonka kaliya ee diiday in wacaysle la seejiyo kursiga gudoomiyaha baarlamaanka galmudug kaligiisaa diiday inta kale way ogolaadeen baa la yidhi maadaama uu diiday kadibna dantu waxay kaliftay in lagu weeraro gurigiisa uu ku yaalla magaalada dhuusamareeb waxaana wararku sheegayaan in markaa dhibaatadan ay muujinayso qayladhaanta iyo musuqmaasuqa ka jira magaalada dhuusamareeb xaaladana aad ay u cakarantaha waa jiraan beelo kale oo iyaguna dhibaato ka tabanaya maamulkan lagu yagaleelayo ama baarlamaankii lagu doortay magaalada dhuusamareeb labadaasi dhinac ayay wararku sheegayaan cabdiraxmaan odowaa oo leh wanaag ayaa socda waayo labada xisbi wada jiray UPD ayaa dadka qaar ay diidan yihiin oo nacayb hore oo xisbigii damujidiid baa jira wuxuuna leeyahay baarlamaanka maanta dhuusamareeb lagu soo bandhigay dhawaan la dhaari doono kalsooniyaan ku qabnaa cabdiraxmaan odowaa sidaas uu leeyahay sida aadba codkiisa ku dhagaysateen inuu u hambalyeelayo marka insha allah waynu arki doonaa qayladhaanta wacaysle qaybta cali gaaf ayaa weliba qayladhaanteedu ay aad u badan tahay iyo beesha sacad xaaladdu aad ayay labadaas dhinac uga kulushahay ma hayno xog kale oo ku salaysan ama beel kale oo salugsan balse waynu arki doonaa xaalku meesha uu ku dambeeyo insha allah barnaamijyada soo socda ayaad kula socon doontaan xog welibana waxaan jeclahay inaan siday tahay ummadda soomaaliyeed ugu gudbiyo markana maxaad ila sugaysaa sidaad ogtiin badaawadayaan waxaan dhowaan soo bandhigay mawduucii wiil dhalinyaro ah oo booliska Soomaaliya kamid ah ayaa dhibaato gaadhay dhibaatada gaadhay waxay muujinaysaa hadalkii ahaa dawladdu kaliya la baxda wiilkaasi muuqaalkiisa sabab la xiriirta dhinaca internetka laga ogolayn maadaama uu go'an yahay oo waliba aad loo qalay lagala baxay kilida jirkiisii la kala qaybsaday maadaama internetka uusan ii ogolayn waxaan ballan qaaday horena idinkugu sheegay horena ugu gudbiyay qaar ka mid ah daawadayaasheeda walina aan ku taaganahay cidda doonaysa inay muuqaalka aragta whatsappka ayaan ugu dirayaa ila soo xiriirto telefoonkaygu waa eber 27629 eber 17 maxaa jira ninka dhalinyarada ah ee Allahu naxariistay dhintay waxay ila tahay dad badani inay isweydiinayaan sababta keentay ama dawladdu sababta waqtiga ninka dhibaatadu ay gaadhay ay horseed ugu noqotay dadka qaar ayaa sidoo kale waxay leeyihiin dawladdu goorma isku bedeshay marka in la dhibaateeyo askari dawladda ka tirsan jirkiisii lala baxo suurtagalna ay noqoto marka in qayb kamid ah bulshada Soomaaliyeed ay maanta wax weyn ay u tahay oo aan la soo koobi kareynin waxaan rabaa marka informationka ama magaciisa saddexan cidii garanayso way garanayaan cidda aan garanayna waxaan u maleynayaa inay fahmi doonto Allahu naxariistay askariga la jarjaray ee kaliyaha lagala baxay magaciisa wuxuu ahaa Jibriil Umar Maxamuud wuxuu ka tirsanaa booliska dawladda federaalka Soomaaliya waxa la diray oo dhibaatadu ay gaadhay 8 bishan aynu ku jirno waa 8 bishan aynu ku jirno ee January 2020 kadib waxa la geeyay isbitaalka Digfaar la dhigi jiray laakiin hadda Erdogan loo bixiyay waa halka kaliyaha lagula baxo askarigan kaliyaha waxa lagala baxay isagoo ku sugan isbitaalka Digfaar haddana la yiraahdo Erdogan oo sida ay warbixintu ay sheegayso waxa uu ka tagay 5 caruur iyo waliba haweeney حاملة معناها
canuga lixaad caloosha weli ku jira daadiisu waxay ahayd 39 jir marka hore dhaawac ayaa gaaray kadib isbitaalka la geeyay isbitaalka marka la geeyay oo isla markiiba la suuxiyay hal kaliya la baxay kadib dadkiisii baa booqday waxay arkeen inuu wiilku kilida laga jeexay meesha ay dhibaatadu ka gaadheen kilida shaqo kuma lahayn kadib isla habeenimo qaliin kale lagu sameeyay waxa la baxay jirkiisa xubnihii ugu muhiimsanaa reerkii baa loo yeeray baxmaydkiina qaata lagu yeeray waaye baxmaydkiina qaata marka lagu yiri fudayd la xiriira in dadka intooda badan wad ogtihiin qofka Soomaaliga ah dadna aad bay u fikiraan dadna way iska samraan naqsi askarigan oo aynan haboonayn in degdeg loo aaso ayaa reerku waxay aaseen kadib markii cadaadis xooggan ay kala kulmeen dawladda Farmaajo oo dantu kaliftay markaa in si degdeg loo aaso marka askariga dhibaatada ama kaliya laga baxay magaciisu waa Jibriil Umar Maxamuud waxa uu ka tagay 5 caruura waxa la asay 9kii bishan aynu ku jirnay kuwaad maadaama kaliyaha laga baxay maalintii 8 bisha oo maalin gudaheed dadku ay aaseen waxaan isku dayay dadkii ehelkiisa ahaa oo ay kamid tahay xaaskiisa oo la yiraahdo Xakiima Maxamuud Cabdulle oo degmada Kaaraan degan cid walba oo ehelka kamid ah waxay la xiriiri karaan Xakiimo Maxamuud Cabdulle oo ahayd marwada Allah u naxariistay marxuumka kaliyaha laga baxay Jibriil Umar Maxamuud oo booliska kamid ahaa dawladda Farmaajana ay kaliyaha kala baxday iyo xubnihii ugu muhiimsanaa dhibka wuxuu gaaray 8 bishan aynu ku jirno koowaad 2020 maalintii qaraxa ama lagu weeraray ama la weeraray iskuuska sayidka xarunta madaxtooyada waa qaraxii ugu dambeeyay dhibaatadii weyneed ee dhacday ayuu askarigan wuxuu kamid ahaa taliska ciidanka Soomaaliya dhaawac ayaa ka gaaray wajiga iyo qaybihiisa ilaa iyo qoorta halka dhaawacaasi awgeed ayaa isbitaalka loo geeyay dawladda qoorta marka halka wax ka gaaraan kilidii la baxay bilaan ku dhaariy arka dawladdu markay qoorta wax ka gaadho iyadu kilidii la baxdaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa marka dadku inay ku baraarugi doonaan qof kasta oo Soomaali ah ee doonaya inuu arko muuqaalka askari oo aan rabo inaan dadka si cad ugu sheego askariga muuqaalkiisu waa kaas idinka qarib maayo qof kasta halkan soo ma bandhigi karo laakiin muuqaalka askarigu dhib weyn ayaa gaaray waliba muuqaalkan wuxuu cadeynayaa qaabka loola baxay jirkiisa fadlan haddaad danaynayso muuqaalku waa kaas haddaad danaynayso oo rabto inaad aragto igala soo xiriir telefoonka lambarkiisu yahay eber 276294 eber 17 waxaan ballankaaga qaadayaa inaan kuu soo diro inaan kaa soo daahiyo waa macquul maadaama kala saacadanahay laakiin ugu dambeyn qof kastoo iga soo codsada muuqaalkan waan u dirayaa indhahaadaad ku arkaysaa ha aaminin ilaa aad muuqaalkan ka aragto waa la jarjaray dhaawacana halkaas ku yaala marka ugu dambeeya faashadu ku xiran yahay muuqaalkaad ka arki kartaan qaybtan markii kilida lala baxay isagoo wali aan dhiman ay reerku arkeen kadibna kilida kala lala baxay magaciisa kugu celinayaa ehlada qofka garanaya way garanayaan cid aan garanayna kulay faafayn dheer ana sii doona cid ila soo xiriirta Jibriil Umar Maxamuud ayaa la yiraahdaa wuxuu ka geeriyooday qoyska kooban 5 caruura iyo hooyada magaceedu waa Xakiima Maxamuud Cabdulle waa dadka inta badan aanan aad ugu firfircooneen tiknoolajiyada waxay ku nooshaa degmada Kaaraan 5 caruur ayuu ka tagay marka ninka Allah u naxariistay dhibaatadaas ayaa gaadhay wuxuu qayb ka tahay dhibaatooyinka ay dadka Muqdisho la kulmayaan maxay ku leeyihiin mataqaana marka la kulanto marka waxay ku leeyihiin siyaasiyiinta ku beesha waxay mogto wiilkiina saasa la kala maxay dhibay hal qof waaye labaha ka dhigto arsadaha ka dhigo intay goorgoorta baraarugo askari la bilaqaysanayo jirkiisa arday jirkiisa la bilaqaysanayo maxaa ku xigi karto waxay la tahay dadka intooda badan inay nuxurka fahmi karayaan insha Allah cid doonaysa muuqaalkan WhatsApp-ka ayaan ugu soo dirayaa ha ii soo codsato ama siyaasi ah ama shacab ah ani waxba igama gelin qof kastoo u diraya eber 27 eber 17 si degan ayaan u sheegay dhigeyso eber 27 eber 17 waa ballan inaan WhatsApp-ka kugu soo diro insha Allah waxay ku soo kordhana barnaamijyada soo socda ayaad kula socon doontaan fadlan aan kala qayb galno murugada qoyska uu ka tagay Allah u naxariistay qoyska uu ka tagay Jibriil Umar Maxamuud fadlan dadkaasi waxaan idinka codsanayaa inaan ilgaara loo lahaado ehelada hadday ogolaadaan telefoonkooda walow sababo amni awgeed ay adkaan karto waxaan idin ballan qaadayaa haddii ehelku iga ogolaado telefoonka marxuumkaas markaad muuqaalka aragto fadlan haba yaraatee isku day qoyskaas inaad wax u qabato muuqaalka daawo kadib waxaan kaa codsanayaa hadday eheladu ii ogolaadaan walaalayaal qof kastoo barnaamijkayga daawadow wax alla iyo waxaad awoodda reerkaas ku taakuleen carruurta saasaa loo galay aabihii reer mii waayo wuxuu ka soo socdaa hadda
qayb ka mid ah ee deegaanada ku dhow ee miyiga ah ee magaalada muqdisho siima tilmaami karo sababo amni awgeed marwada waxaa la yidhahdaa xakiimo oo ka mid ah marwooyinka soomaaliyeed ee dhibaatadu ay gaadhay marwadaasi waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan fadlan xakiimo maxamuud cabdulle hadday iga ogolaato inaan telefoonka sheego barnaamijkan kan ku xiga iyo kan ku sii xiga iyo kan ku sii xiga ayaan kusoo bandhigi doonaa haddaad damiir leedahay ama aad jirkaagu uu dubaaxanayo fadlan dadkaasaad la xiriiri doontaa laakiin hadday dhahaan aniga amnigaa qalqal nooga jira oo telefoonka ma sheegi karno iyagana markaasi waanu arki doonaa anigu kulley amniga ii daran inuu qofku u badbaadaa muhiim ii ah in dhibaato lasii gaarsiiyana wax kastaba taasaa ka daran insha allah marka qofkii codsadana waan usoo diri doonaa hadduu alla idmo intaasaan kusoo gabagabanaya barnaamijkaygii dabagalka wararka 12 bisha koowaad 2020 barnaamijkan waxaad ka daawanaysaa janalka aftahana production iyo janalka madasha production labadaasi janal ayaad igala socon kartaa inta ka horeysa waa cabdilaahi balwaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabad geli